inta saaxib in sanadka cusub 2023 ka dhimantaa maalmo aad u kooban waxaan rabaa inaan kula shargareeyo 6 business idea ama fikrad ganacsi sanadka cusub saaxib aad bilaawi kartid dhaqaale fiican aad ka sameyn kartid waa dareemi karaa qof walba dhalinyarada wuxuu rabaa inuu sameeyo wax la hustle side ama wax loo yaqaan shaqo ducayd af Soomaaliga lagu dhaho inuu waxa weeye shaqadu hadda hayo ama wax barashado hayo oo ku dulwado fikrado kale oo ideeyooyin kale oo lacag ama business runtii u sameyn karo hadaba waxaan rabaa inaan kula shargareeyo 6 business idea oo aan runtii waqti badan geliyay aan soo baaray oo aan isleeyahay dhalinyarada channelka ku xiran iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed way ka faa'iideysan karaan maadaama sanad cusub oo bilaabanayo motivation badan ee dhalinyarada hayaan waxaa sida video aan la shargaray si waxa way dad badan uga faa'iideystaan kaliya marka adeeg waxaan ka codsanayaa daawanayo inaad video-gan like saartid sidoo kale hadii aad jeceshahay siyaalaha online looga shaqeysto teknolojiyada ganacsiyada maalgashiga halkan waxaan ku soo gudbiyay video inta kor aan ku xusay marka saaxiib waan ugu soo biiri kadhaa channelka adoo subscribe saaray gamblada kana furanay si update ugu horeeyay aad u heshid dabcan dhalinyaro badan marba waxaan soo wadiyaan ustaad xagee ka la soo xiriirnaa aniga waxa igala soo xiriiri karaan Telegram-kayga wax ku qoran Geela Bashiir in ka badan 22,000 oo qof baan ku xiran Telegram-kayga saxda aan leeyahay dabcan kuwa kala jiro dad kale ay sameysteen laakiin kayga saxda 22,000 baan ku xiran ama waxa sameyn kartaa description-ka video-ga aan daawanaysa description-ka ku dhufo show more halkaas baa ka helaysaa linkiga saxda ee Telegram-ka halkaas baa waxa weeye nagala soo xiriiri karaa surface-da aan bixino hadii noqoto inaan website sameeyno ama koorsooyin halkaas baa ka soo dalban karaa WhatsApp numberkeena baa ku jiro dadena ganacsi walaal ugu horeeyay wax noqonaysa waa podcasting waa maxay podcasting saaxiib waxa weeye waa sidii wax u shaqeeyay kala idaacada waa idaacad adigu ah leedahay hadaba laba qaabood bay u shaqeeysaa podcasting marka aad inaad footid ama waxa noqonaysa wax loo yaqaan solo podcasting oo ah kaliya ina waxa weeye podcasting soo fariisatid halkaasna waxa weeye fikradahaaga ideeyooyinkaaga iyo wax kasta waxa weeye aad leedahay faa'iido weey aad ku soo gudbisid ama mid kala jirto interview podcasting oo ah dadka ina ku martaqaadi su'aalahan kala dadka waxa weeye successful-ka dadka waxa weeye entrepreneur-ka dadka dhiirigeliyo kale ina ku martaqaadid halkaasna waxa weeye sidii wariyay kale aad qofka u wareystid adigana wax aadiyada aad ku dhex gubsatid hadaba maxaa ka faa'iido ka dhaa podcasting saaxiibayaal waxa ka faa'iido ka dhaa lacag baa laga sameeyaa oo waxa lagu dhex iibiyaa sponsor waxa lagu dhex iibiyaa xayisiimo sidoo kale waxa weeye waxa ku xayisiin kartaa ganacsi kasta aad leedahay ama business-yada dadka kale ay leeyihiin halkaas baa lacag saaxiibayaal ka sameyn kartaa podcast-ka dabcan waa in subscribe la saara ama waa in la follow gareeyaa waxa weeye channelka aad ku leedahay dabcan community badan baa ka dhex sameynaysa podcast-ga halkaas oo ku fududaanaysa waxa ganacsiyada dambe mustaqbalka aad sameynaysa ama kuwa hadda haysidba inaan dadkaasi percentage kamid ah service-kaaga iyo priority-ga ay haysid aad wax ka dhex iibisid sidoo kale podcast-ga business adiga aad leedahay baa ku dibada ka dhaa oo inaan meesha dad kale business-ooda iyo aad u sameyn lahayd adiga product inta sameystay baa business-kaaga caadiga saaxiibayaal ku dhaxaysanaysa hadaba maxaa kaaga baahantay inaad bilowdo podcast saaxiibayaal waxa kaaga baahantay inaad geliso mic maadaama waxay tahay cod waxa rabaa sida mantiqan idaacadaha kala mixer gareysan volume fiican leh degan qofka waxa weeye qurux badan oo u dhageysan kara waxa baatay inaad geliso saaxiibayaal mic fiican waxa weeye surface-kaas kale ku qabanayo sidoo kale waxa u baahantay in la gato waxa la computer si waxa weeye codkii aad u qabatid sidoo kale waxa u baahan tahay software-rada wax lagu edit gareeyo kaasoo kale hal software baa u baahan tahay ama hal application inaad isticmaashid mixer baa ahana way isticmaalaan oo ayana waxa weeye codka si qurux badan saaxiibayaal loogu hagaajin karo oo lagu soo karo maxaan kugu sheegayaa business-ka saaxiibayaal dhalinyaro aad u yar baa ku jirta oo Soomaali ah podcast badan lama sameeyo dhalinyarada Soomaali internet waxa uga badan yihiin YouTube-ka iyo TikTok-ka laakiin podcast-ga waa meel aqoonta iyo cilmiga laga faa'iido tusaalahaan kale aniga aad baan u isticmaalaa waxa weeye saaxiibayaal podcast-ga markaan gaariga wato kale inta waxa dhageysanaya waxa weeye podcast ilaa iyo waxa ugu jira 11 channel podcast kala duwan hal qof oo Soomaali xataa way ugu jiraan oo aan ka dhageysto channel hadii aad podcast aad ka dhex abuurtid waxa ku fududaanaysa ina waxa weeye wax qurux badan dadka aad u soo gudbisay niche aad dooranaysid waa sida YouTube channel kale niche asaleeda ku fiican tahay passion baa ku tahay baa dooranaysa halkaasna community qurux badan ganacsi qurux badan mustaqbalkana waad ka sameyn aan kugu daray saaxiib maamaha wali waxa la sameeyay podcast-ga
codka la qabto waxaa la soo geliyay isla YouTube channel baa sameyn ka dhaco codkii baa soo gelinaysa maadaama dad badan ay ugu dhaheen ustaadi ma bilaabi karna YouTube channel ina wajigooda ka soo muuqdaan dad badan baa runtii aan jeclayn marka maxaa sameynaysaa podcast baa codka ku qabanaysa YouTube channelkiina waa ku dul faraysa oo isla episode-ka ama xalqadii aad soo dhigtay waxa weeye podcast baa YouTube ka soo gelinaysa kaliya sawir baa saaraysa oo ku qoran yahay marka topic ka hadlaysid marka wajigaaga cidna uma jeedo laakiin maqalkii codkii baa halkaa laga dhageysanaya marka podcast dhalinyarada waxaa la yahay hala bilaabo isha lagu hayo barnaamijyo qurux badan baa kusoo dayan kadhaa haddii noqoto ciyaaraha baa ka hadla kadhaa motivationka baa ka hadla kadhaa buugta baa review ku sameyn kadhaa waxyaala badan waxaa weeye hataa siyaasadda haddaa jecesha baad uga hadli kadhaa ganacsiyada online-ka iyo entrepreneurka iyo waxaas oo dhan baad ku sameyn kartaa sidee iskaga diiwaangelin kadhaa podcast oo channel uga furan kadhaa saaxiib yaal waxaa jira application dhowr ah oo la isticmaalo waxaa ka mid ah podcast waxaa ka mid ah Spotify waxaa ka mid ah Apple podcast application kale way jiraan kuwaas mid ka mid ah baad iska diiwaangelinaysaa account baad ka furanaysaa halkaas waxaa soo gelinaysaa xalqooyinka ugu horeeya dadna waxaa la shaqaynaysaa community-ga dadkaaga existing follower-ka marka ay haysato su'aalo kale Instagram-kaaga TikTok dadka ugu xiran baa la shaqaynaya channel-ka waa sida YouTube kale asaa waxa weeye wuu gorogoreenaya wuu fidaya mustaqbalkana channel qurux badan buu ku noqon oo ku guuleysto marka hore ba idin sheegay waa podcast-ga lacag laga sameeyaa oo qofka markuu podcast dhageysanayo iskama dhageysan karo inuu subscription qaataa application-ada idin sheegay qofka marka hore waa inuu subscription qaataa oo lacag bil kasta iska bixiya marka dadka ku dhageysanaya podcast-ga lacagaha ay bixinayaan lacag ba ka helisa sidoo kale xayeysiimo iyo idheeda dadka way ku dhigi karaan waxa way sponsors badan baa ka helisa Soomaali ah halkaasna dhaqaale kale ka soo geli karaan idan saddexaadna waa idin sheegay ganacsi adiga Alle baa ku dulbilaa kadhaa maadaama community badan mustaqbalka ay kugu soo xirmi karaan marka waa meel sar hasa laga sameyn karo saddexda qayb aan kugu sheegay saaxiib dhaqaale ama lacag aad ugu sameyn kartid fikradeena labaad saaxiib waxa noqonaysa inaad furto waxa loo yaqaan real estate agency waxa laga yaabaa inaad dhaadiniyo real estate agency-ga dhaqaale badan buu baahan yahay dhankaas hayla aadin dhan kale oo ka sahlan oo almost zero investment baa rabaa saaxiib inaan kula shaqeeyo si ognahay waxa isla waafaqsan horta ganacsiga real estate-ka ah waa ganacsiyada la hubo oo qofka hadduu lug la galo millionaire iyo taajir uu noqonayo ana ganacsiga kaliya walaalayaal laga siman yahay oo xitaa wadamada horumaray reer galbeedka kale ilaa iyo Afrika iyo wadankeena isku siba looga faa'iido waa ganacsi marba faa'iideysa leh oo saa ognahay guryaha in la gato guryaha in la ijaarto waxaas oo dhan saaxiib laga maarmo bini'aadamka meel ku hoydo shelter buu marba u baahan yahay waxa kula shaqaynaya qaab fikrad qurux badan oo aad uga faa'iideysan kartid real estate agency waxa sameynaysa waxa la yaqaan website real estate ah loo diyaariyay qaabkiisa baad sameynaysaa hadii aad aqoon dabcan dadka website sameeyo kale baa leedahay website real estate diyaariyay tusaale aniga waxa la shirkad website development annagana la soo xiriiri kartaa annaga ku sameeyna website u diyaarsan real estate agency marka waxa laga rabaa kale waxa sameynaysa waxa loo yaqaan Facebook ba ku xiraysaa Facebook page waa sameysanaysaa website-na waa sameysanaysaa qaab professional baa business ku bilaabaysaa waxa marka website-ka soo gelinaysaa guryaha kirada ah oo magaalada ka banaan tusaale kale xaafadda maanta booqanaysa ilaa iyo waxa soo xisaabinaysaa dhowr guri oo kira ah baa soo xisaabinaysaa lacagta lagu keenayo adigana waxa saaranaysaa lacag yar oo dulaala waxa soo gelinaysa waxa weeye website-kii sawiradii baa soo gelinaysa marka waxa loo baahan yahay kaamiro xoogaa mobile qurux badan inaad soo qaadatid oo guri waxa weeye sawir macquul ah aad ka qaadid hadii qolka master room yahay description-kan aad muhiim yahay qolka ma master room ba ma single ba ma qaab kala iyo guriga dhan inaad soo qurux badan aad u sawiri kartid aad website-ka soo gelisid sidoo kale aad same time Facebook-ga soo gelisid guriga waxa weeye qiimaha lagu kaleeyo adigoo saaray markaas waxa weeye faa'iidada adiga qaab broker baad u shaqeynaysaa ama waxa dhan Soomaaliga dulaal intii marka guryaha la raadinayo dadkeena waxa dhaqan u ah qofka inuu maalin kasta xafad aado oo guri raadiyo oo albaabka xitaa oo ku gargaraaca oo weydiinay qolmeeda ka banaayahay guri kala ma taqaanaan ma haysan marka waxa fududaana sax maanta technology maadaama oo horumaray in shirkadaada website-keeda la soo booqdo guri kasta qiimihiisa sawirkiisa xaafadda ku yaalo
waxa weeye surface gurigaas laga heli karo ama waxa weeye waxyaalaha gurigaas uu gaarka u leeyahay kale in si fiican runtii halka looga daawado qofka si dhib yaran asoo guri raadin oo kula soo hadlo aad guriga geesid aad ka kireysid commission fiican aad ka qaatid adiga marka mas'uuliyadda laga baahan waxa weeye owner guriga iska ina marka hore aad u tagtid aad ka dhacdacis ina waxa weeye shirkadan iyo businesska aad leedahay aad website-ka ka professional aad u tustid Facebook page-ka aad dhahdin dhalinyarada baa ganacsiga ba ku jira gurigaaga kirada ku rubtid baa kugu keenaya faa'iido yarna waa saaranaya adoo wax yar hoos ka dagayo maadaama macaamiil badan ay igu xiran yihiin qofkii waa la heshiinaysaa contract baa la galaysaa kadibna waxa way macaamiisha adaa keenayo ilaa qofka furaha lagu wareejinayo guriga